Salaamu calaykum. Waxaan rajaynayaa inaad fiican tahay meel walba oo iga daawanaysid. Naagtan waxay tiri waxaan qashay oon cunay ninkayga. Waan ogahay waad yaabantiin intaa kaliya ma aha. Waxay tiri intii iga soo hadhayna waxaan ku sooray martida. Waa tuma naagtan maxayse tahay sababta dhabta ah ee ninkeeda u qalatay ee u cuntay. Waxaan ku ogaanaynaa halkan aan bilaabo. Naagtan waxaa la yidhaahdaa Umayma. Umayma waxay dhalatay 1968 waxayna ku dhalatay koonfurta dalka Masar tuulo yar oo ku taala. Dhowr sano kadib iyadii hooyadeed waxay u soo wareegeen caasimadda dalkaasi ee Qaahira. Umayma markay soo gaadhay 18 sano waxay weligeed ku hamin jirtay horta markii ay yarayd Umayma inay noqoto model ama dumarka dharka xayeysiiya. 18 sano markay gaadhay waxay heshay chance ay ku timaado Mareykanka. Isla markiiba waxay bilowday inay Mareykanka timaado. Mareykan markay timidna wax walba hoos bay ka bilowdaan nolosha wax kor ka bilowda ma jiraan. Waxay ka bilowday shaqadeedii inay noqoto shaqaale guri dadka ciyaalka u haysa oo hawsha guriga iyo waxaas qabata meel ay degtay iyo waxaas kadib muddo yar kadib oo kooban Umayma waxay heshay chance ay weligeed raadinaysay iyo riyadii ay in badan ku haminaysay ee ahayd inay noqoto maalin uun model. Modelnimadii markii ay ka shaqeynaysay muddo xoogaa yar oo kooban ah markii ay modelnimada sida u gashaybana horay waxay ka sii bilowday isla markiiba inay si gaar ah u ugaarsato oo ka agdhawaato odayaasha. Oday ma tahay ma aha. Odayaasha lacagta leh ee jeebweynta ah. Muddo markii ay odayaasha ugaarsanaysay oday walbo lacag la markay xoogaa la socota iskaga hadhay intay kista lacagta ka qaadato baa waxay isbarteen sanadku markuu ahaa 1991 oday la yiraahdo Bell Nelson oo da'diisa waqtiga ay ahayd 56 sano. Bell Nelson wuxuu ahaa nin aad taajir u ah oo hanti badan Ilaahay siiyay. Wuxuuna horay u ahaa uu ka shaqeyn jiray duuliye laakiin markaas iyada shaqada ka fadhiistay. Markay isbarteen maalmo yar ay is yaqaaneen markiiba waxay dhigteen aroos oo way is arooseen. Way dageen arooskoodina ma noqon mid waara. Wuxuu ahaa arooskoodii mid ku eg hal bil kaliya. 4 isbuuc kadib maalin maalmaha ka mid ah markii ay ahayd maalinka mahadnaqa dunida. Waxaa jirta maalin la yiraahdo dunida wax walba maalin baa loo yeelay Soomaha maalinka jacaylka, maalinka hooyada, maalinka nacaybka ma maqal iyo maalinka mahadnaqa dunida. Maalinka mahadnaqa dunida markii ay ahayd 1991 oo isqabeen kaliya 4 isbuuc Umayma waxay soo qaadatay maqas waxayna ka gelisay ninkeeda dhuunta. Waxay soo qaadatay feerada ama maxaa la dhahaa kaawiyada wax lagu feereeyo. Waxayna kaga dhufatay madaxa dhowr mar. Markiiba nafta ka dhacday Bell Nelson halkiiba ku dhintay. Intaa kaga maysa tagin. Markay aragtay inuu dhintay Umayma waxay aaday jikada waxayna soo qaadatay mindi oo waxay bilowday hilibkiisa inay jarjarto. Wixii u horeeyay ay jartayna waxay ahayd xubinka tarankiisa. Waxay ka jartay xubinka taranka kadibna waxay ka jartay madaxa. Madaxa markay ka jartay madaxay qaaday waxay gelisay foornada ama ovenka. Lugaha iyo gacmaha ka jartay waxay ku riday digsi weyn biyo ka buuxisay kadibna waxay saartay dabka. Marka sab la leeyahay ama allabari la samaynayo hilibka qayb waxa laga dhigaa faxfax. Qaybna waxa laga dhigaa waa la uumateeyaa dabka la galiyaa waa la cuccuciyaa ama waa la solaa. Marka qaybna la idin kariyo la idin faxfaxiyay qaybna la idin solay maxaa idin ka dhiman bariiska ana idin keenay bariiskana. qayb way soo shay qaybna way faxfaxisay hilibkii. Intii soo hadhay waxay ku riday jawaan boorso bacda qashinka lagu riday madow kadibna waxay ku riday boorso. Gaariga ku soo qaadatay boorsakanada gaariga soo galisay waxayna u keentay saaxiibteed gurigeeda oo islahayd ama ku caawisaa maadaama ninkan uu dhintay khalaas. Saaxiibteedba waxay ku tiri waxaan doonayaa saaxiib ninkan meydkiisa inaad ila qarisid. Waxaan ku siinayaa lacag ah $75,000. Saaxiibteed madaxa weynaaday. Naagtan mar dhow baa la aroosay bilba kama soo wareegin arooskeedii. Bilba saa ka soo wareegtay arooskeedii marka ninkeedii naagta qashay. Marka waxay ku tiri kuma caawin karayo. Way iskaga soo tagtay waxayna dib ugu soo noqotay gurigeedii inta aysan guriga gaarin saaxiibteed markay sida uga soo baxday. Saaxiibteed waxay markiiba wacday oo wargelisay askarta. Askartana waxay qabteen
Umayma oo gaarigeeda ay ku jiraan ninkeeda hilibkiisii. jeeb baa lagu taagay markiina waxaa loo taxaabay xabsiga. maalmo yar kadib waxaa la saaray maxkamadda Umayma. waxaa kaloo maxkamadda la keenay dhakhtar nafsi ah si loo ogaado xiskeedu ama maskaxdeeda ama garaadkeedu inuu taam yahay naagta ninkeeda dishay ee qashay ee karisay. dhakhtarkuna wuxuu la yeeshay su'aalo. wuxuu ku yidhi maxay tahay sababta ninkaaga aad u dishay? waxaadna ii sheegtaa sida dilku uu u dhacay. markaad dilaysay sida uu u dhacay. marka waxaan usoo noqonaynaa Umayma sababta ku kaliftay ninkeeda inay disho ee ay samayso arrintan dilka ah taasoo lagu tilmaamay dilkii ugu foosha xumaa ee qof dumara u geysata ninkeeda abid ee ka dhaca dalka Mareykanka. Umayma markay yarayd aabaheed wuxuu ahaa nin aad u dhib badan oo iyadii hooyadeed bedela aad u dhib badan marka waxay ku soo kortay nolol qub iyo qac markay yarayd. waxayna jeclayd waligeedba oo maskaxdeedii ka dhex guuxaysay inay noqoto maalin uun model. marka si ay u aado wadamadaas Yurubta ama Mareykanka ama wadamada horumar intay aado ay fursadda noocaas uga hesho waxay iyadoo yarba bilowday inay barato luqadda Ingiriiska. marka hooyadeed ee Qaahiro keentay tuulada laga keenay waxay daris ahaayeen oo u dhawaa iskuul Mareykanku leeyahay oo luqadda Ingiriiska dadka lagu baro. iskuulkaas bay wax ka baratay oo dadkii macallimiintii intay ka heleen gabar yar oo Fariida halkaas Ingiriiska luqadda iskaga dhistay. 12 sano markay jirtay ba maalin waqti ay ka soo noqon jirtay private-ka Ingiriiska ama tuushinka Ingiriiska baa la waayay gabadhii. familkeedu waxay raadinayeen dhowr saacadood in badan baa la raadinayay waa la waayay. markii dambe waxay timid iyadoo kabna luulaysa kabna la laadinayso oo ooyeysa. maxaa kugu dhacay marka lagu yirina waxay tir nin baa ay ka haysto ee afduubtay kadibna wuu ikufsaday bay tir ninkaasu. ninka waxay jirtaa 12 sano da'ahan marka iyada ah. ninka kufsaday waa wiil dhalinyaro ah oo aabaheed nin ay qaraabo yihiin saaxiibna yihiin saaxiib guudna ay yihiin uu dhalay. labadii oday baa ka xaashay sidii caadada ahayd lababa isma weydiin. wuxuu ku yiri gabadhan 18 sano markay gaadho waxaan ku darayaa wiilka waa ballan. marka wuxuu yiri arrinta aan saa ku dhamayna sidii baa lagu dhameeyay. iyadana waxaa loo sheegay 18 sano maalinkay gaadho ninka in lagu darayo. waa gabar yar. Umayma tiiba u cuntami weyday qaadan weyday maskaxdeeda ninkii intuu afduubtay iyadoo ilmo yar kufsaday in lagu yiraahdo waa lagu guurinayaa hadhowna. Umayma wax markay soo gaadhay 18 sano baa waxaa loo sheegay 18 sano ay uga dhiman tahay 2 bilood. 18 sano markay 2 bilood uga dhiman tahay baa Umayma waxaa loo sheegay in arooskeedii uu soo dhow yahay kadibna lagu daray ninkaas. way iska qaracantay waxayna sheekadii la wadaagtay ku dhacday sida loo kufsaday iyo sida la doonayay ninkaas in loogu daro dadkii ardadii meesha wax ka wada baranayeen iyo macallimiintii oo qaarkood ay aad saaxiibo u ahaayeen. nin ka mid ah macallimiinta baa wuxuu ku yiri maadaama 18 sano wax yar ay kaaga dhiman tahay aniga ka bixinaya lacagta sharciga aad ku goosanaysid fiisaha iyo tigidhka Mareykanka ku geynaya. markiiba waxay bilowday baasaboorka inay xareysato baasaboorka u soo baxay fiisihiyo tigidhkii bay hore ka qaadatay reerkooda weynna waxay soo qaadatay boorsadeeda way ka soo tagtay sidii bay waxay ku timid Mareykanka markay timid nolol faqri iyo dagaal iyo kufsi iyo dhib iyo rafaad badan ay soo martay intaas odayaasha ay ka daba wareegaysay la lahaa odayaasha ka daba ordaysayna waxa la yiri odayaasha waxay ka qaadan jirtay lacag iyo droogo. odayaasha waxay uga daba cararaysaa noloshan faqriga amar inay ka hadho oo waxa iyada dakhliga soo gala ee ka soo gala modelnimada iyo xaysiinta ma ahayn wax nafteeda iyo nolosheeda maareeya. waxay doonaysaa inay noqoto qof qani ah oo hanti leh oo ladan. odaygan Bell Nelson markay isbarteen wuxuu u sheegay inuu yahay nin dabeecad xun. dumarkuna aysan ugu dul qaadan karin inay la noolaadaan 2 isbuuc ka badan. uu leeyahay caado xun. waxay ku tiri waa caadi waan kugu qaadanaya wax kaste. marka waxay fiirinaysay maadaama uu yahay qorax casar gaadhay hantida iyo dhaxalka odaygan uu ka tagayo. odaygana cid ma lahayn kale iyo awlaad kale iyo reer kale midna ma lahayn. naag buu guursadaa wax yar markii wada joogaan la noolaan weydo way iskaga tagtaa. marka waxay islahayd odaygana waqti walba uu dhiman karaaye hantida faraha badan eedan waliga ka faqriyeenin dhaxal umba islahayd. odaygii markii uu guriga markay isguursadeen waxay tiri markiiba wuxuu igu bilaabay kufsi iyo inuu idilo jirdilo. kufsi waxaad isweydiinaysaan nin iyo naag isqabo maxay iska kufsanayaan. kufsi waxaa la yiraahdaa qofku isagoon diyaar ahayn in mataqaanaa wuxuusan doonaynin in lagu khasbo. naagtaadoo meel iska jiifta
haddaad sida huwanti intaad saa iskugu dada aad boqoojiso dee taasi waa kufsi. naagta wuxuu ku samayn jiray kufsi iyo dil, jirdil uu wax kasta ku sameeyay. af iyo adin wuxuu ka dhihi karaba uma reeban jirin, uma hambayn jirin. maalinka iyada ah ay dilayso waxay tiri anigoo sariirta jiifa buu ii yimid inuu i kufsado. markuu i boqoojiyeyna manqas ii dhawaabaan laacayoo dhuuntaan ka geliyey. 2 mar markaan ku dhuftay feeradii madax kaga dhuftayna naftu ka dhacday. in badan baan iscelceliyo waxay tiri intaa aan la noolaay bisha dhanba maalin walba saa un baa joogta ii ahayd. waxun baan isku celcelinayay, dhaxalka fiirinayay. laakiin maalinka caqliga iga biibayo waxaan soo xasuustay maalinkan 12 sano jiray ee la kufsaday, aabahay dilku ii geysan jiray iyo waxa uu wali kan igu hayo. marka waxay tiri markaan 2 mar feeradii ku dhuftay hore ka dhintay waan qaadan waayay. waxaan isla mar Soomaadan dilin dhaqsaha inuu iga dhinto ma doonayn. waxaan doonay inaan cadaabon in yar u rafaadiyo u kadeedo. marka waxay tiri markaan dilay aan arkay in naftu ka dhacday waan ka soo tagay qolkaygaan tagay. waligaa iyo allaha ma maqli jirtay qof marka uu hilib jarjarayo ama kawaanka ka shaqeeyo qofku kawaanlaha ahaado ama ha noqdo qof gurigiisa hilib ku jarjaranaya inuu u dhayla ma dhigto dhar yar oo maarta u dhar yareysto, dhar yar intuu soo xidho hilibka ku jarjara kadibna markaba iska saara. iyadu markay ninka dishay nafta dhaqso hore uga dhacday waxay bilowday inay aado qolkeeda jiifkay gashay. waxay soo marsatay lipstick guduudan ama rosette guduudan bay soo marsatay. waxay soo xidhatay cambuur guduudan, kaba guduudan bay soo xidhatay, koofiyad guduudan bay soo xidhatay. kadibna xagga ay jikada tartiib naag u socota shaqo ama xaflad u socota camal markay u soo labisatay isu soo barfuumisay ba waxay soo qaadatay mindi. kadibna waxay bilowday inay jarjarto hilibkiisa. marka waxay tiri markaan inna kariyey inna solay en dubay intii kalena aan boorso ku xidhay, 2 feerood bay soo qaadatay, xawaash bay xagga ka marisay. waxay gelisay ovenka ama foornada. markay solmeen ay dubmeen si fiican u shiilmeen waxay soo qaadatay barbecue sauce bay soo qaadatay, dushay kaga shubtay. dhinacan kale waxay ka soo qaadatay ketchup, dushay ka marisay, way cuntay. waad yaabantihiin. intaa waxay raacisay wuxuu ahaa hilib ay cunto abidkii ugu macaanaa. 2 feerood bay cuntay, way asturtay. marka sida caadada ah wadamada reer galbeedku marka la gaaro maalinka mahadnaqa dunida waxay sameeyaan oo qashaan oo caado u ah digiranta. marka waxay tiri dariskaygana intii hilibka soo hadhay intaan shiilay baan hilibka digirantii aan qalay aan ugu dhex daray oo isla kariyay isla habaysay bay u dhiibtay reerkiisa ay u cunaan iyagoo u malaynaya hilibkaas inuu digirantii caadiga ahayd la qalayay yahay. Umayma waxay tiri waxaan ka xumahay ninkayga inaan dilay oon qashay oon cunay. waxaanse ku faraxsanahay inaan anigu noolahay. xayla maalinka iyada ah hadaanan dili lahayn anigu idili lahaa. qaadigii maskaxda madaxa weynaaday buu yaabay. naagtan waxay sheegtay waxay noqotay wax maskaxda aadamaha ka weyn oo gali weydayba. waxaa lagu xukumay xabsi daa'im, cimrigaha ku furtaa lagu yidhi. 2006 mar ay ahayd iyo 2011 mar ay ahayd. labadaa mar waxay isku dayday in damiin lagu soo daayo, balse waa la diiday. qaadigii wuxuu yidhi naagtan waxay halis ku tahay ama ay khatar ku tahay bulshada. intaa marka laga soo tagana wuxuu yidhi haddaan soo daayo aniga iyo dubba maxkamadeedkaygaba ninkeeda meeshay kajab ka marsatay bisbaas bay saa noogu daadsanaysaa way nacunaysaa. marka wuxuu yidhi taa meesheeday ku ron tahay, meesheedaa nooga jirto. haddaan halkan isla soo gaarnay ood sheekadan dhammaysatay waan kaaga mahadcelinayaa. muuqaalkan haddaad ka heshay suulka saar si aad noogu soo biirto, subscribe taabo. wixii fikir iyo ra'yi isweydaarsiya ama aad jeceshahay channelkan inaad ka aragtid qaybta hoose faallada nagula wadaag. wayna muuqaalka kan xiga insha Allah. nabad iyo caafimaad baan idinka tagay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.